in muuqaalka laga duubay iyadoo qaawan bilnasiib labada qof ee isqaba marka ay wada galmoonayaan way isqaawiyaan laakiin wuxuu ka faa'iidaystay uu ka duubay waxaan ku hayaa warbixintii ugu dambeysay ayuu lacag u diray sawirkiisana waa lay soo diray waa nila wadaagayaa warbixinta oo dhaba ayaan nisanayaa maanta walaalayaal afka ayaan furanayaa okay barnaamijkaan galo walaalayaal soo dhawaada walaalayaal gabadha walaasheen ayaa naga dalbatay inaan garab istaagno wixii hoo iyo hiilba aan garab istaagno haddaan nahay wariyaal walaalayaal gabdhaheena haddii la ciilo oo waxyaabo badan lagu dhaa inaan garab istaagno danta ayaa inoo kalifaysa marka waxaan doonayaa in maslaxo oo ka soo jeeda beelweynta daarood ka soo jeeda inaan garab istaagno oo wixii hiil iyo hooba haddaba wiilkii jareer weyne isguursadeen ayaa gabadhii muuqaal halisa ka duubay afka ayay furatay marka xalay buu soo wacay marka baryahan miskiida ayuu ka leeyahay cadoosh oo uu ooyay sawiraan kalena waa laga soo qaaday isagoo murugaysan beerta nabadda muqdisho oo sidaa u qiiraysan haddaba gabadhan maslaxo oo ahayd gabadh cadka dhaylada cuni jirta dhaylada oo meel kastoo maqaaxi wax la haysiin jiro uu isaguna ka haysan jiray laakiin biil kasta la siin jiray $100 maqaaxiyaha haysiintoodana ay ku cuni jireen dhaylada iyo hilibka iyo waxyaabaha adigu qofka maqaaxida loo haysiinayo iminka heer baan gaadhnay Soomaalideena qofka matalan media ku jira ama meel kale ku jira marka wax loo haysiinayo qofkii calooshiisa ayuu u dharginaya lacag yarna uu siinaya maqaaxidiina waa u kala kacaysaa nimanka jareer waxay ku caanamaaleen hablaha Soomaaliyeed bay aad uga faa'iideystaan nimanka jareer markaan ka hadlayno jareer wiilash hablaha Soomaaliyeedna inta badan waxay moodaan jareertu inay faa'iido leedahay oo dadku ay dhaan jareer ninka jareer guursada qofkaasi uu liimaana hablaha Soomaaliyeedna waxa aamineen in wiilasha Soomaaliyeed ay ka wanaagsan wiilasha jareer haddaba wiilkan oo cadoosharo la yidhaa oo baryahan barnaamijkiisa aan ka meegmeegaya ama aan ka gagabanayay ayaa maanta wax xumaana afka kala qaaday walaalayaal marka hore waxaan islaa waa laba qof oo kala tegay maxaa deenin iyo naag kala tegin maxaa hal cishaan soo qaadanay maxaa laga sii wadwadayaa ninka naga daaway kala tegeene haddaba ninkan miskiinaan moodaynay waxbuu la aamusanaa gabadhan hadda cod bay soo dirtay codkaa inii sii daynayaa iyo codad badan waxay ku leedahay markii uu geeyey Nairobi Kenya waxaa la siiyey qolalka lamaanaha qolal lamaana ayaa la siiyey marka muuqaal ayuu kaga faa'iidaystay iyadoo qaawan habluhuna inta badan waa kuwaad iska ogtahay raggooga marka ay la joogaan ama sariirta ay kula jiraan bahal bijaamaa la yidhaa ayaa ku dhex dhacdaa oo qofka ilaa waa ninkeegu cawradeeda meel kasta inuu arko waa diinteena islaamka qofkii uu qabaa iyaduna gabadhani ma aaminsanayn haddaba muuqaal halisa ayuu ka duubtay muuqaalkii xalay ayuu soo wacay waxaan sii daynayaa codka waa raggii Soomaaliyeed waxbaa ku dhacay astaghfirullah nin kasta gabadh buu muuqaal ka duubaya hadhowna ugu gabadhii hadday ka tagto qasab waan soo dhigaya haddii kale igu soo noqo war sheekadii waxay noqotay hablaha Soomaaliyeedna isma ilaalinayaan waxaan doonayaa haddaba inaan sii daayo muuqaalka ay soo dirtay iyo codka ayaan sii daynayaa gabadhii yarayd aad bay u ooyeysaa wayna yaaban tahay afka ayay kala qaaday waxaan doonayaa muuqaalka inaan sii daayo iyo qaabka uga duuba inay noo sheegto wuxuu ka faa'iidaystay iyadoo hurudda ayuu ka faa'iidaystay bal waxaan sii daynayaa codka wariya raggii Soomaaliyeed halis bay noqdeen dumar iska ilaaliya baalkiina haddeeta waa la wareejinayaa ilaahay baad leedihiin nabadgeliyo ha sii daayo codka madax sabuul madax digsi madax baaquli أنا ناكل خبايا هاي هذا مقال أنا ناكل خبايا يقدو بتين سيبره بلشة الوسط إلى وباهنا هاي هذا أنا ناك قرابان هاي وأنا مذح بنان هاي عيد وإنك برنامج كبير كان بلا بين أن كبر وني هست قرابة لا إله إلا الله محمد رسول الله برنامج كم مربوط كسي دري هست أصلا كبر وني هست ضاتن باتيسي شرقرية ويلكي شرير وينه شاك الله يابلا أيو سميه قبل وحو كدو موقال يدو قاون موقال كي حالي وحو كوله هدادي وصول نقوم ويدو موقال كي با صور ديقيا قبل يريد موقال waxay soo dirtay cod ay leedahay iga gaadha
idinka miidiyaha ugu afka dheer handhageysana maxaa la dhahay oo cid oo maxaa la dhahay aan ka cabsanayana ma lahan cid i qabta ma lahan be bismillaahi raxmaan raxiim cid i qabta ma lahan anoo maxaa la dhahay oo xaaskiisii ahaa يعني أهاوي أنا حاسكيسي أها لي ده موقال أصلا ماشي فري موقال قلمال أني واي يالتهم تاني نهرت أبارك من دي على دي حاجة كل معنا كل أو غير كل فدي هدي أنا هرداي بيا وحلة أقدر أنا هرداي gabadhan markay Nairobi Kenya tageen waxay samaysteen qol baa loo kireeyay lamaanahu markay isqabaan ilaa waa laba qof oo isqaba oo isla socda qolalka lama kala seexanayaan laakiin waxa la siinayaa hal sariira ay ku wada raaxaystaan ama ay ku wada seexdaan gabadhii waxay leedahay gabadhan iyo waa miskiin baan u maleeyaa gabadh yar baan u maleeyaa macal qaabka ay u hadlayso gabadh Soomaaliga aad u jajabsanaysa waa gabadh yar baan u maleeyaa gabadha wuxuu waa kan handhageysan oo dhamaystirna waa kan iga duubine macquul anoo qaaban sisay ku dhacay ilaan waayo maxaa la dhahay meesha nin mas'uul ah ba meesha ma ii geysanin baani waayo nin jiljilacsanaa meesha ii geystay ya oo lacag leh u daran tahay ani sharafteyda hadaa lagu tumtay haddii kale waa lisla arki doon waan lisal muqdishona waa lisla joogaa muuqaal ama sawir qaaban anoo qaaban oo jiifo oo hurda hala soo qarxiyo هذا سوق عبسانينا كلين مدح صبول مدح دكسي كلين إيه مدح باخولي وحان هيسين سودايا ما فهمتين إذا كبقايا ملهان إذا كبقايا ملهان هبين هطا وحا أو سوقع محل هاي وكا سيرت النبي نوغشا كينيسا هبين وحا أو سوقع عضي أي سلايد مسخوشة تك إساق أو كدو بنايا bal u fiirsada ragii Soomaaliyeed xaq ay taageen u fiirsada gabadhu qabo oo haddana uu la galmoonayo uu la hurdo ayuu doonayaa cawradeeda inuu ka duubto bari haday ka tagtana sidoo soo bandhigo dhageyso way ku qabatay hadalka wadaad dhageysta walaaliyaa warbixinta waa tan iyadoo muuqaal iyo duuba rabo anoo oo gabsaar la'aan oo jiifo muuqaal iyo duuba rabe oo soo kacay hada maxaa ka wadaa idib darada maxaa waay ما وحرسنا يا علي دهاي حتى وح هبليه Soomaaliyeedna ilaahay nasiib darro waxa ugu riday ninkeeda leydka ma baqtiinayso leyd bay isku shidayaan wiilashina way aaminayaan bahal bijaama leeyda way xidhanaysaa wiilkiina sawir iyo kamarad buu la cararayaa bal han eegna hadaba warbal adduunyadan war marog madam sadadkan inaka madax sabuul madax digsi madax baaquli أنا ناكل خبايا هاي هاي هذا موقال أنا ناكل خبايا إيجا دوبتين سيبره بلشة الوسط ليلا وباهنا هاي هذا أنا ناك جرابان هاي وأنا مذح بنان هاي عد محل هاي أو واي هاي وجراب وياه جربت النبي قاود دعية لكن وين كنا صنع لما أنا كدوبتي يدو هرد أيو كدوبتي ومركا أي هوشة قلتين كبرديو هرودة أيو كدوبتي مركا وحو كوري حاليبو صوعي هدانا نسكسو نقوم بكوري وحن صوبان ديجيه موقالكا قبليهنا وحن نقودين إن لغا نحيو موقال هدي لغا دوبتو إن لصوبان ديجا موقالكي ويل كان مركا سين وقاري كرنا سومالي دينا قفك سفكر كيسا ويل كان سين وقبا كرنا قبرد انتونا صوبان ديجين عورة ديدا وحن دونا يا فرينتا أي صوت ديرتا إيا قابكا وقاضي ayaan doonayaa inaan dhageysiyo waxa dadka gadaal ka soo galay 300 baa tii sheer garaya waata cid oo maxal dhahay aan ka cabsanayna malahan cid qabta malahan be bismillaahir rahmaanir rahiim cid qabta malahan anoo maxal dhahay oo xaaskiisii ahaa يعني أهاوي أنا حاسكيسي أها لي ده موقال أصلا ماشي فري موقال قلمالي هايا أنا واي يالتهم تاني نهرت أبارتمنتي على دي حاجة كل معنا كل أو غير كل فدي يجيكو هدي أنا هرداي بيا وحلة أقدر أنا هرداي وحلة يقدوبني معقول أنا قابل سيسي كودعي إلا وايو محل دهاي ماشي نين مسؤول أبو ماشي ما بيجي جيسنين باني وايو نين جلعسنا ماشي يجيستي يا
oo lacag leh u daran tahay ani sharafteyda hadaa lagu tumtay haddii kale waa lisla arki doon waan lis muqdishona waa lisla joogaa muuqaal ama sawir qaaban anoo qaaban oo jiifo oo hurda hala soo qarxiyo hadda soo qarxiyo ha cabsanina kulligiin madax sabuul madax digsi kulligiin iyo madax baaquli waxay haysan soo daaya ma fahanteen ciidanka baqaayana laba cod ay soo dirtay oy gabadha yar isku buuqday ayaa inishidaya dhammaantiin waan soo qabanayaa wiilkan seen uga badbaadinaa oo nagu qornaa gabadha ha soo bandhigin walaalayaal calafkii labada qof way isguursan karaan laakiin niyo dadkan soo qaraacaya biliis iga daaya ku yidhaa walaalayaal barnaamij ku jiro ma hadli karayo waxaan doonayaa barnaamij markaa ku jira laga soo dhex gala ma jecli markaa dhammaystiro ayaan baashaali karaa laakiin intaan hadlayo warbixin baan gudbinayaa mid baan nii sheegayaa gabadhan hadalka ay ka hadlayso wiilka seen uga gaadhnaa walaalayaal intuuna soo bandhigin raggii soomaaliyeedna waxay noqdeen gabdhahooga waxay aaminsan yihiin gabadha inay berri kala tegayaan dhammaan iyadoo qaawan ayuu ka faa'iidaystay waxa u soo gashay isaga oo ka duubanaya han sii daayo qof kasta waan soo qabanaya raygiisa iyo wiilkaa saan uga joojin lahayn gabadha intuuna soo bandhigin iyo guurkan qasab kuu leeya gabadha iigu soo noqo waan kuu baahanahay anigu ma garan karo walaalayaal wax la isqasbi jira anigu ma garanay gabadha iyo wiil way kala tegi jireen hadday isku baahdaan iyaga isku soo noqon jireen laakiin wiilkan wuxuu leeyahay rajactu baan yidhi rajactu iyadii baa diidan maanta markuu iyadii ka tegtay telefoonna waaweyn baa loo iibinayaa iphone 13 baa loo iibiyaa shalay waad arkaysa waxay soo bandhigtay marka gabadhii yareed soomaalidiiba u kacday arsaaqadii xumayd ee ninkii xasan toob arsaaqad ka wanaagsan baa la siiyey markaa wiilkii markuu arkay soomaalida gabadhii u kacday wuxuu ku yidhi adoo qaawan baan ku soo bandhigayaa haddii kale qasab iigu soo noqo habeenkii aan joognay nairobi kenya aan wada galmoonnay waxaan kaa duubtay fiidiyo haddaana soo dhigin buu ku yidhi hadalka aan kuu sheegayaa beena gabadhii codkan iyo cod kale ay soo dirtay tiri war walaalayaal naga gaadha ininkaa miidiyaha ku jiro af dheer naga gaadha waxaan sii daynayaa xilliga uu ka duubay qaabka ay nagu sheegayso waa tan cid aan ka baqaaya ma lahan habeen hataa waxaa uu soo kacay maxaa la dhahayay iyadoo muuqaal leeyo duuba rabo anoo oo gabsaar la-aan oo jiifo muuqaala liyo duuba rabe aa uu soo kacay aadhahay maxaa ka wadaa idibdarada maxaa waaye may waxaa raadsanaya aa lii dhahay haddaa wax madax sabuul madax digsi madax baaquli ani naag la qabaayaan ahay haddaa muuqaal anoo naag la qaba ah iga duubteen sii baraha bulshada lagu soo dhiilaan u baahanahay haddana naag garoobaan ahay waana madax bannaanahay cid maxaa la dhahay oo maxaa la dhahay aan ka cabsanayana ma lahan عدي خبط ملهن بسم الله الرحمن الرحيم عدي خبط ملهن أنا محل لاي أو حاسكيسي يعني واي أنا حاسكيسي لي ده موقال أصلا مش فري موقال كلمالي جاها يعني واي يا لطم تاني نهارت أبارتمنتي على حاجة قل معنا قل أو يرى خلفه يجيكو هدي أنا هرداي biyaha wax leeyahay u dara anoo hurtaay wax liiga duubine macquul anoo qaadansan ku dhacay ilaan waayo maxal dhahay meesha nin mas'uul ah meesha ma bii geysanin baani waayo nin jiljilacsana meesha ii geystay ya oo lacag leh u daran tahay ani sharafteyda hadaa lagu tumtay haddii kale waa lisla arki doon waan lisla muqdishona waa lisla joogaa muuqaal ama sawir qaaban anoo qaaban oo jiifo oo hurda hala soo qarxiyo hadda soo qarxiyo ha cabsanina kulligiin madax sabuul madax digsi kulligiin iyo madax baaquli waxaan haysan soo daaya waxaan sii daynayaa muuqaal kale soo sii daynayaa gabadhan aad baa weysaa seen ku badbaadinaa walaalayaal iyaduna waxay leedahay fiidiyooya ayaan kaa hayaa oo ceebahaaga adigana bannaankaan soo dhigayaa dadkan la soo qaraacaya ayaa walaalayaal bal nabigii maxamed ku salliya calayhi salaatu wasalaam dadkan ina soo qaraacay maxamed ku salliya 400 baatiin meesha dad inta laga isku yimaadaan salliga rasuulka in la iloobo nabigii maxamed ku salliya walaalayaal
mid baa nii sheegaya iyadu muuqaalkan kale soo duubtay waxay leedahay isagana muuqaalo ayaan ka hayaa muuqaalo isagana aan ka hayaa han dhageysano waa kan ya taada kale ay iigu handadeen maslaxooda muuqaal galmaaliga ahaaya ana adaa xaaskaaga ahaa hadaa inaa Nairobi joogi biyo cabsiiseen misana aad anoo ogeyn wax muuqaal galmood igu sameysayna duubteen si ragnimadii social media lagu soo dhigi lahay loo baahan yahay waa markii saddexdiina batiirkan ila geenayo taasni la wada marsiinayo haddaba midaan ku hayaa saldhigga booliska magaalada muqdisho ayay ka dacwaysay ay ku tiri xasan toob dee gabadh la qabo guriga ma u geli jiray mise ninkana siiyey anuma kala garanayo waxay ku leedahay saddexdiina tiirka ayaa nitaagayaa aniguma garan kara sababtoo naagta nin baa qabay ninkan baa ka duubi kara inamada kale u wareejin kara marka adigay daawanaya 430 wiilkaas aynu ka gaadhnaa gabadha intuuna soo bandhigin iyadoo qaawan walaalayaal sariirtii ay ku jiiftay ay kula raaxaysanaysay ama ay u tagtay ayuu ku leeyahay maanta waan ku soo bandhigayaa Soomaali waxaan taaganahay tiirkii ugu dambeeyay ayaan taaganahay han dhamaystiro walaalayaal ay muuqaal galma aha liga haya ana adaan marwadaadi ahay meeshaan fadhisay rufyaanyo xunka ya muuqaal galmi waxaan sanamo ku cabnaag sharmuuto oo tumanaysiina ma bihi baani ma fahanteen naag la qaban ahay ana hadan gaay ahay inta meel aad higeysid ani xayisiisa halkan saaksiya maxal dhahay ma aadan dhihi lahayn ya baahida kala jiran akoonkaada lacag ku jira iga xasdeysay aan iska aamusnaa ilaahayna sharmuuto igama dhigo ilaahayna dhilla igama dhigo alxamdulillah wixii alafkayga cunaa wixii aan helaa maanta wax ku iibsanaa sidna ceebahooda dhan inaa banaanka soo dhigaayo ya taada kale ay iigu handadeen maslaxooda muuqaal galmaaliga ahaaya ana adaa xaaskaaga ahaa hadaa inaa Nairobi joogi biyo cabsiiseen misana aad anoo ogeyn wax muuqaal galmood 500 baatina sheer gareeya waxaan inii hayaa shaashada qaraaca walaalayaal waxaan doonaynaa ninka la cadoosheero la yiraahdo wuxuu ka soo jeedaa beesha jareer weyne waxa la doonayaa in komitiga loogu qoro ama luuqa loo galo walaalayaal gabadha way isqabeen gabadhu haday diidan tahay qasam ma ha igu soo laabo walaalayaal gabadhan maslaxa la yiraahdo lacag ayaa lagu sameyn jiray markaan anigu eegay iyo qaabka dabaasha markaan eegay iyo qaabka gabadha jirkeega loogu raaxaysanaya ninkii qabay oo nin kale waliba barkada uu kula jiray ila labada qof ay isqaba iyagu baa barkad ku wada raaxaysan kara laakiin nin kale oo daawanaya iyo ka kamarada ka duubaya gabadha marka waxay ka dhigan tahay shiraaka ayay ku haayeen waa gabadh lagu iibinaya ka dhigan tahay meesha ay soo dhigeen sababtoo iyaga ayaa daawanaya oo jareerta timaha adag la daawanaya walaalayaal marka gabadha ay miskiinta ee bacbacda ayaa lagu daawan jiray marka arsaaqadii ayaa soo xidhantay marka wiilkii waxa lagu yiri wax samee baa lagu yiri gabdhaha qurquruxda badan leh ee jidhka macaan leh ee kubka iyo baaskooladaha leh waxa lagu iibiyaa ganacsiga ayaa lagu iibiyaa wad garanaysan walaalayaal wadamada la jooga iyo wadamada horumaray gabdho ay ka qurux badan tahay ganacsi ayaa lagu kala tuuraa marka iyagu waxay aamineen gabadhan la'aantood inay waxba ka soconayn nimankan timaha adag lana cid daawanaysa markaa ma jirto gabadha yara shaxshaxdaysay iyo dadkan singalka iyo dadka xaasaska leh dadka wada qosqoslaya ee barkadaha ku dabaalanaya waxaasay daawanayeen laakiin nin jareero barkad ku daawanaya ayaa daawanaya walaalayaal wiilkii haddaba xalay ayuu filin sameeyey cadooshare waxa uu ku leeyahay habeenkii Nairobi aan joognay ee qolka aan iskula jirnay hurdada waxaan kaa duubay muuqaal adiga oo qaawan oo mur iyo gacana ayaan kaa duubay waanan hayaa haddaad ii soo noqon weydo media ayaan soo dhigayaa gabadhii yar iyadoo kacsan oo ooyeysa ayay media hadda soo gashay hadalka baaqa ay dirayso waxay sheegaysaa qaabka uga duubay oo dhammaystiran bay sheegaysaa dadka gadaal ka soo galay ee 550 ka haynugu celiyo video ugu horeeyay ee la soo diray iyadoo ay leedahay waa kan qaabka loo duubay waa kan madax sabuul madax digsi madax baaquli ani naag la qabaaya ahay hadaa muuqaal anoo naag la qaba ah iga duubteen si baraha bulshada lagu soo dhiilaan u baahanahay haddana naag garoobaan ahay waana madax banaanahay cid maxaa la dhahay
أن كعب صناعي أنا ملهن عدي خبط ملهن بي بسم الله الرحمن الرحيم عدي خبط ملهن أنا محل لاي أو حاسكيسي أها يعني أها واي أنا حاسكيسي أها لي ده موقال أصلا ماشي فري موقال قلما لقى هايا أني واي يالتهم تاني نهارده أبارتمنتي ألدي حاجة قل ما أنا قل أو وكا وقلك عدوش وكذا فايدة قبل waxay la degtay qol waxa la siiyay dad Nairobi Kenya adigu shirkad ayaa marti qaaday inay u xaysiiyaan wax marka waa lamaana isqaba lamaana xidigtana way ahaan jireen lamaanaha Muqdisho ugu qurux badan bay ahaan jireen qaabka ay wax u duubayaan iyo qaabka ay u faraxsan yihiin laakiin kulliba shaydaan baa soo kala dhex galay dadku isku wada mid maaha marka waxaan doonayaa qaabka uu uga duubay iyada ayay noo sheegaysaa iyo qaabka uu ugu xujeynayo 600 كنت قفاتي شرقرية شاشتنا قراعة هنسيدا أيوا كان إيه dhalinyaro qol fadhi ii jiko haddii anoo hurdaayay biyaha wax leegu dara anoo hurdaaya wax liiga duubine macquul anoo qaaban sisay ku dhace waka ilaan waayo maxaa la dhahay meesha nin mas-uul eba meesha maba ii geysanin baani waayo nin jiljilacsanaa meesha ii geystay ya oo lacag le u daran waxaa laga baqayaa ninkan xasan toob ee jareerka ayaa laga baqayaa in uu guriga ugu soo dhuumaalaystay oo ninka cadooshada uu guriga ka sii furay taasna niyo maskaxdeeda way ii noqon weyda marka idinkana waan weydiin doonaa nin naag xaaskiisa uu qabo nin kale iridda kama soo furi karo waa sababta ay maslaxo u shikisan tahay laakiin muuqaalkan ninkana duubay cadooshara duubay laakiin cadooshare waa ka hadda dumarkii la soo dhigdhigayo qaawan isaguna wuxuu sidii jareer weynaa tahay adiguna ku dhex dar buu isiri maqli jirtay dadka waa la raaciyaa dadka ama dadka cagta raaci ma maqli jirtay isaguna wuxuu isiri gabdhahan loogu hanjabayo fiidiyoyada bilow adigana kuu soo noqotaaye weligeed lama arag jareer wax soo bandhiga isaguna wuxuu cagta raaci buu waa kan dadkiiba la cafinaya nimankii mareexaan gabadhii ay kubsadeen bal la soo wada cafiye adiguna cagta raaci oo soo bandhigo xadaysid marka isaga waxa ka qaldan xaaskiisii hadduu soo bandhigo gabadhiina waxay geysay saldhigii bay geysay isagu gunta ayuu galayaa waana la soo qabanayaa xasanto gabadhani cadooshare waxba uma dhalin waad la socotin way isqabeen laakiin hadduu gabadha yar nolosheeda israada ka xumee gabadhan waxaa la islahaa waxa guursanaya hadda waxay wada sheekaystaan ninkan dudubley wada sheekaystaan ee ayuub kaarlo ayaa hadda ay wada sheekaystaan oo doonaya inuu guursado una u soo qaado dalka Belgium ama Muqdisho ugu tago hadda iyaga isku shubtaan baa leeyahay marka wuxuu ka xanaaqay miskiidkana uu ka soo habaaray miskiidkii ugu weynaa Muqdisho intuu maalin dhex istaagay ayuu ka soo habaaray kaliya wuxuu ka soo habaaray ninka la yiraahdo Ayub Carlo iyo wuxuu ka soo habaaray shiinu ka soo hala shiina culay ninkaas ka soo habaar labadaas ka soo habaaray waa miskiidkii buu ka habaaraya shiina culayna lacag buu uriyay gabadha yar ninkan Ayub Carlona waxba waa miskiin wuxuu isiri gabadha yar soo dhoofiso waa gabadh yar oo naqan isku dawee gabadh aan weligeed guursan wey waana gabadh yar soo hadlaysa la garanaya walaaliya cunugtan waa la khiyaamaya waa la siraya codkan siidaya dadkan soo qabto shaashada qaraac walaaliya ani sharafteyda hadaa loo tumtay hadii kale waa lisla arki doon waan lisal Muqdishona waa lisla joogaa muuqaal ama sawir qaaban anoo qaaban oo jiifo oo hurda hala soo qarxiyo hadda soo qarxiyo ha cabsanina kulligiin madax sabuul madax digsi digaarani soo qabanaya kulligiin iyo madax baaquli waxaan haysan soo daaya ma fahantiin ciidan ka baqaayana ma lahan cid aan ka baqaaya ma lahan habeen hataa waxa uu soo waxa laga doonayaa maslaxa waxay ka soo jeedaa qabiilka ma jeerteen bay ka soo jeedaa ma jeerteen wayna difaacdin gabadhiina jareer la muuqaal soo bandhig gabadhiina difaacda 720 ugu daawanaysin ma jeerteen waxaan soo ogaaday maslaxa inay inaga soo jeedo gabadha difaacda inuu wiilkaasi soo bandhigin la hadla wiilka gabadha wuxuu ku qasbay aanu ma aragtay guur wala kala tagi jiray laakiin nin qasbayo leh qasab igu soo noqo waxaan isir miskiinta yar lacag buu ka heli jiraan isagoo fikirayo ka basawiraan soo galay isagoo saale wallahi uu fikiraya beertii xorriyada ee ku taalay Muqdisho u baxsanaaba beerta sawirka laga soo qaaday aad buu u murugeysnaa walaaliyaal
dee gabadh jareerana ninkan hadduu guursadana qof isaga u eg ba u dhalaysaa laakiin qofka yaree buskudka waxa u dhalaysaa malaajeeyoo kale ilaa jareer hadduu jareer guursado waxa u dhalaysaa qof sanku intaa leegyahay laakiin markay wiilashii jareer ay guursadaan hablaha timaha jilicsan leh waxa u dhalaysaa wax malaajee la yidhaahdo isku celcelis baa la yidhaah oona jareer raahan jileecna ahayn oo buskud oo kale u dhalaysaa laakiin hadduu mid jareera soo jiidi lahaa waxa u dhalaysaa wax isaga sida timihiis oo kalea walaalyaal oo timaha duqsiga leh marka intaasay ka cararayaan inamada jareer weyne walaalyaal inay isla xaafadii ku laabtaan oy maxay dhalaan bay diidan yihiin wax timihii diqsiga leh ayay diidan yihiin oo timo adayga oo markay feedhaan saqabtu ay kala jabaysa walaalyaal marka wuxuu isleeyahay alaabta yare bacbacda ee daaroodka isku noole bilow malaajee ku dhashaa isaga iyada marka uu guursaday uu noolaaday ninkii kiyara u yar naaxay u buurnaaday laakiin iminka markuu fikiro gebigiisu u qalalayaa uu isnuugayaa hadha waxaad arkaysid isagoo tuur la saa u socda haddaad arki weyda hadalkan kuu sheegaya beena ha sii daayo warbixinta dadkaa soo qabanaya maxaa la dhahay iyadoo muuqaal la iyo duuba rabo anoo oo gabsaar la-aan oo jiifo muuqaal la iyo duuba rabe oo soo kacay hadhahay maxaa ka wadaa idibdarada maxaa waaye may waxaa raadsanayaa lii dhahay haddaa wax haddaad wax isku haysa maxay tiri madax sabuul madax digsi madax baaquli ani naag la qabaayaan ahay haddaba dadkan weydiinaya qaabkan uga gaari karna wayna dhegaysiye laakiin saan uga gaari karna dadkan soo qabanaya walaaliya dadkan soo qabanaya